madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa saqdii dhexe xalay kormeer ku tagay qaar ka mid ah saldhigyada ciidamada booliiska ee ku yaala magaalada tan Muqdisho. Madaxweynaha ayaa kormeerkiisa ka bilaabay saldhigga booliiska degmada Cabdicasiis, halkaas oo warbixino kaga dhageystay taliyaha saldhigga iyo saraakiishii xilligaasi shaqada ku qornayd. Intaa kadib ayuu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud u gudbay saldhigga degmada Waaberi, si lamid ah ayuu warbixino kaga dhageystay taliyaasha saldhiggaasi. Madaxweynaha ayaa intii uu ku sugnaa nawaaxiga saldhigga degmada Waaberi oo saaran wadada Makka al-Mukarrama ee magaalada Muqdisho ayaa halkaasi ku gacan qaaday dadweyne aan badnayn oo halkaasi u joogay xirxiridda goobahooda ganacsi maadaama xilli saqdhexe ay ahayd. Madaxweynaha oo ilaalinayeen gaadiidka dagaalka ee AMISOM iyo ciidamo fara badan ayaa haddana fiidkii hore xalay hakad la geliyay dhaqdhaqaaqa dadka iyadoo cabsi laga qabo amniga madaxweynaha Soomaaliya. Inkastoo madaxweynuhu uusan saxaafadda u micnaynin kormeerkiisii xalay, haddana waxay rumaynaysaa hadallada siyaasiyiinta qaar ee Muqdisho ee qaba in Xasan Sheekh Maxamuud uu kaga jawaabayo qorshayaashan mooshinka xildhibaanada ay ka keeneen. Taasi ayaa su'aasha la xiriirta la sii gelinaya madaxweynuhu ma shacabka ayaa soo doortay uu taageero ka raadinaya mooshinkana kaga badbaadi karaa. Dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo 2 sano jirsanaysa ayaa ah markii ugu horeysay oo uu sidan xilli habeen ah magaalada kormeer ku sameeyo, waxaana la isweydiinayaa sababta hadda madaxweynaha tilaabadan ku dhalisay. Ha yeeshee dadka reer Muqdisho ayaa xusuustay madaxweynihii hore Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo ku caanbaxay kormeerka caynkan ah ee xilliga habeenkii iyo tagista jiidaha dagaalka ee ciidamada dowladda ay kula dagaalamayeen dhaqdhaqaaqa ururka Al-Shabaab. Cabdinaasir Maxamed Cali, Kalson TV, magaalada Muqdisho.